بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن داوديال meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal Studios magaalada Muqdisho anigu Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka idiin soo jeedinaya qodobada aynu caawa ku eegi doonno waxa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa 3 qof u soo qabatay dilka Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta Abbas Siraaji waraysi arintaas ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal sidaad intiina badan la wada socoteenba waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta habeenkii xalay ahaa waxaana maanta lagu aasay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay marxuum Abbas Siraaji wasiirkii howlaha guud oo ahaa wasiirkii ugu da'da yaraa xukuumadda Soomaaliya isla markaana kamid ahaa xubnaha baarlamaanka federaalka ku soo biiray sanadkan waxaana ay sameeyeen hay'adaha dhinaca amniga la xiriira ee dawladda baaritaanna ku aadan arintaasi iyadoona ugu dambeyn loo soo qabtay 3 qof dilka wasiirka waxa stuudiyaha Universal igula sugan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiye ku soo dhawaad Universal barnaamijka dabagalka wararka dabcan si gaar ah ay mas'uuliyiin kaga saaran tahay arimahan oo kale marka ay dhacaan markii aad maqasheen in falkan uu dhacay tilaabo nooc ah ayaad qaadeen ugu horeyn bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa mahadsantahay Cabdullaahi bahda barnaamijka kula wada iyo guud ahaan TV-ga Universal aad u mahadsan yahay sida runtii ummadda ugu gudbinayo barnaamijyada wax dhaxalgalka ah oo qusay runtii xilligaas waxa taagan marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii iyo qaraabadii oo ka baxay guud ahaan golihii wasiirada xildhibaanada dadkii uu ka tagay oo ka gooriyooday oo anaga aan ku jirno runtii wasiir Abbas Siraaji oo ahaa runtii nin dhalinyaro ah runtii dhacdada habeen horata ka dhacday dalka waxay noqotay dhacdo runtii in reebtay oo dhibaato reebtay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii mataqaana hami badan leh waxaan leenahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo ilaahay jannadiisa ka waraabiyo ummadana sabir iyo iimaan Allah ka siiyo inta kadib maxkamadda garsoorka ciidamada qalabka sida mar hadii ay dhibaato dhacday oo falka oo noqday fal dil ah oo qof xanuun u dhinta oo san naqanin waxa amar isla habeennimadii aan ku bixinay in xeeraanta ciidamada qalabka sida ay arintaasi dabagal ku sameeyso cidda lagu eedeynay cidda lagu tuhmayayna ay daba istaagto isla habeennimadii dadka u istaagay waxa kamid ah xeeraanta ciidamada qalabka sida waxa u istaagay mataqaana hay'adaha ammaanka oo ku jiray booliiska iyo militariga oo iskaashaday waxa suura gashay in dad badan oo lagu eedeynayo dib ka dhacay oo la xiray kadib baaris la sameeyay baaristii markii la sameeyay kadib ay xeeraantu u suura gashay in dad loo haysto arintaasi la soo eedeeyo oo maxkamadda sidaas lagu keeno way marka imise qof ay soo qabateen falka ilaa hadda waxa u xiran 3 qofood oo lagu eedeynayo in ay rideen 2 kamid ah xabadihii oo ku geeriyooday wasiir Abbas Siraaji Allah u naxariistay lagu eedeynayo maxkamadda ayaa maanta la horkeenay runtii waxayna wax ka weydiisay dhageysigoodii koowaad ayay wareysatay sida ay wax u dhaceen kadib maxkamaddu waxay amar ku bixisay maadaama kiiska uu bilow yahay in hay'adaha ammaanka ay soo dhameystiraan waxyaabaha looga baahan yahay way ciidamada falkan geystay yay ilaalinayeen sida qoraalka lagu qoray hay'adaha baarista iyo xafiiska xeeraantana oo cadeeyay waxay ciidankaasi ilaalo u ahaayeen mas'uul kamid ah dawladda Soomaaliya oo runtii lagu sheegay inuu ahay hanti dhowrka guud ee qaranka oo ahay bagaariga mataqaana dhibka geystay oo ay askarta saarayeen yaa waxa la hanti dhowraha waxayna sheegeen hay'adaha baarista wali inay wadaan doorka iyo mas'uuliyadda ay ku lahaayeen oo ku leeyahay cidda gaarigaas iska lahayd falka dhacay doorka uu ku leeyahay wilina waxa socoto runtii baaristii iyo mataqaana sidii mataqaana ay wax ku socdeen wilina ma soo gabagaboobin maanta waxa dhacday dhageysi koowaad oo loogu talagalay in dadka sida kuuga lagu eedeynay ay dhageysatay maxkamadda dadka la dhageystana waxa loo diray xabsiga
waxaa amar ay ku bixisa maxkamaddu in ay soo dhammaystiraan cid walba iyagoo lasoo cadaynayo cid walba mas-uuliyadda gaarka ah iyo doorka gaarka ah ay ku lahayd mataqaanaa ee dhib ka dhacay oo runtii masiibada qaran ah. marka dabcan caddeemihii rasmiga weli ma dhammaystirna. caddeemihii kiiska intiisii badan mar haddii la helay dadkii xabadaha riday mar haddii la helay la aqoonsaday dadkii gaariga saaraay kiiska intiisa badan waa dhammaystiran yahay laakiin mar haddii procedureka iyo hab nidaamka cadaaladda u degsanaa waxay fareen in waxa si fiican loo hubiyo qof walba doorkiisa si aanan u dhicin degdeg oona u dhicin in la hubiyo cadaaladda. sida aan wada arkayna gaariga uu watay wasiirka dabcan meesha ku aadan kursiga wasiirka isaga gaariga wada leeyahay ayay xabaddu ka gashay. sida muuqatana qiyaasteyda iyo dad badanoo laga yaaba inay aragti yihiin waxaa qabaan inay hal xabo uun tahay xabadda meesha gashay heerka duleelka uu leeyahay marka la eego waxaana xiran sidaad sheegta 3 qof. marka dabcan falkaasi ugu dambeyn wuxuu noqonayaa Soomahan inuu hal qof uun kaliya xabadda uu riday uu ku geeriyooday wasiirka. waxyaabaha keenayo in baaris dheer la sameeyo ay kamid tahay dadka gaariga waxaa gadaal ka saaray 2 qofood oo hubaysnay oo ciidamada ilaalinaysay mas-uulka gaariga markaa saarnay kamid ahayd. xabadda cidda sida rasmiga u riday in la hubiyo waxay u baahan tahay in qoriga iyo gumacii xabadda markii lagu sameeyey wasiirka marxuumka dhintay baaris lagu sameeyey xabaddii laga soo saaray iyo hubkii qoryihii yaa la qaaday waxaa la hubinaa in qofka afkiisa kaliya lama xugmi karo qoriga uu watay cidda qorigaas wadatay iyo xabadda qoriga ay ka dhacday markii la hubiyo mataqaanaa hab sheegaya ma jiro oo rasaasta iyo wixii siyeelna qorigan markii xabadda ka dhacdo hab loo baaro leeyahay xabadda dhacday in qorigan ka dhacday iyo in qoriga kale ka dhacday waxyaabaha hay'adaha baarista aan u dirnay kamid tahay in la hubiyo cidda gaarka u lahayd xabaddaasi cidda riday way jiraan runtii qof kasta uu sheegay doorka uu lahay wuu sheegay laakiin cadaaladana faraysa in wax walbo si dhab ah oo degdeg ku jirin in loo hubiyo kadibna go'aanka maxkamaddu ay soo saarto. laakiin dadka qabateen qof dhahay aniga mas'uuliyadda qaadayo oo xabaddii aan riday ayaa sababtay in wasiirkeeda ma jiro. way sheegeen kulli inay xabad rideen laakiin qof dhahay ma jiro aniga teedii waa taban ficlan weli go'aankaasi gaarin waxaad ogtahay marka aad dib u laabanno in ciidamada hubaysan ee gaadiidka mas'uuliyiinta saaran ay falal badan oo dil ah ka geysteen magaalada Muqdisho. dhalinyaro ku xamaalanaysa qaarkood gaadiidkan bajaajka oo kale in hadda kor la dilay shakhsiyaad kale oo caadiya la dilay oo aanay Muqdisho markaad marayso wadooyinka muhiimka ah baabuurta ay ciidamadu saaran yihiin mas'uuliyiinta wadada uma ogola gaadiidka kale ama inay ka hormaraan ma ogola sidaan aragnay inay ka daba maraan ma ogola oo hadday ka daba maraan qoryo ku fiiqaan oo halis ay gashaan noloshooda dadkaas haddii ay ka hormaraan iyaga ayaa gaarigooda xooli ku socdo uma ogolaado. falkaasi uu soo socda dabcan waxay gaartay wasiir xukuumadii ka tirsan in xalay lagu dilo. maxaa tilaabo ah oo aad qaadaysaan qorshaha maxkamadiina ee arrintaasina muxuu yahay? intaan qorshaha u gudbin runtii dhibaatada ah in ilaalada mas-uuliyiinta dowladda la socota dhibaatada ay geystaan markii la fiiriyo dembiyada dalka ka dhaca waxay yihiin waa dembiyada labaad ee dembiyada ugu badan qaybta labaad ay kaga jiraan dhibaatada dadkan shacabka iyo muwaadiniinta dalka haysato. waxaan rabaa marka koowaad in aan la hadlo ilaalada wada mas-uuliyiinta dowladda ee runtii caadaystay inay dadka xabad ku fiiqaan dhibaateeyaan dhibaatada dadku dhowr nooc ay u gaartaa qaarna inta xabad kor loogu riday argagaxana markaasay dhulka ku dhacaan ay jajabaan qaarna xabad lagu riday hantidoodii gaarto gawaaridooda xabad ku dhacdaa qaarna wayba dhaawacdaaba qaarna sidii wasiirkoo kale wayba xabadii ku dhacday u dhintaan u geeriyoodaan. dhibaatada noocaas ah waxay u sheegaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida ay kaga soo talagelayaan in loo aqoonsan doono inay tahay mid ku talagal ah aynan noqon doonin mid qof lagu difaacaya ama nafteeda lagu difaacana ay noqon doonin. dadkan muwaadiniin waaye xaqay loo yihiin inay wadada socdaan in aad xabad ku ridaa si macna darra ku ridaa amba aad argagixisaa amba aad dhibaataysaa marmarsi uma noqon doonto waxay ahayd mataqaanaa inay in aan qof inaad difaacaysay marmarsi mu noqon doonto marmarsi mu noqon doonto inaad adiga isdifaacaysay marmarsi mu noqon doonto waxay u aqoonsan doontaa mid ku talagal ah inay tahay arrintaas loogu bareero qofkaas muwaadinka in lagu dhibaateeyo. midda kale oo rabno inaan sheegno mas-uuliyiinta la wado ee ilaalada ku wata magaalada ayagan inaan u sheegna rabno waxaa waaye 2 arrinba way sameeyaan mas-uuliyiinta. 2da arrin waxaa waaye midna waa mare
qof muwaadin ah oo wadadiisii socdo ama laami ha socoto ama jicada ha socdee oo wadadiisa socda in laga daba imaado oo inta la baasgareeyo laiska joojiyo la dhaho joog adiga iga har markuu oo muwaadinka wadadiisa saxda ahayd ku socdana xabad lagu ridaa mas-uulkii darawalkiisa iyo ilaaladiisa aan ku amrin in ay muwaadiniinta ka horeysana ay daba socdaan kuwa ka dambeeyana ay nabadgelinin ay dhibaateeyo intay ka hormaraan kadib dhibaato u geysto asigoo gaariga saaran dhibaato u geysto arrintaasna isla markii aanan ka howlgelin waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay nin qof ku talagalay qeybna ka ah runtii dhibaatada ay ilaaladiisa geysteen waxaa taa ka daran iyadana qof mas-uul ah gaari wata waxaa la socoto ilaalo magaaladuu dhex maraa magaalada markuu maraayo waxaa ka daba imaanayo shila dhacay siduu raba ku dhacay qof muwaadin ah dhib la gaarsiinaa asigoona qofka muwaadinka dhig jalaq u siinin oonan u istaagin oonan wadin oo hadduu isbitaal u baahan yahay gargaar fidinin u geynin iyo isaga dhaqaaqaa meesha isaga tegaa arrintaasi waa mas-uuliyad darro weyn waana dembi ciqaab ka dhalanayso xeerka guud ee ciqaabta soomaaliyeedana dhigaayo qofkii ay ku caddaato mas-uuliyadda laga bilaabo kiiskan laftigiisa cidda ay ku caddaato in ay qof muwaadin ah askar la socotay dhibaataysay haddana iyadoona waxba tilaabo aqaadin isaga tagtay dadku xoolo maaha muwaadin waayo dalka asaa kaa leh mas-uulna asagaa u tahay ciqaabta dembigaas ka dhalata oo mas-uuliyad darada ah u gargaari la-aanta u gargaari weysay ka tegista a ka tagtay xitaa adigoon dhibaateyn markaad u imaato oo mas-uul aad tahay qof dhibaataysan inaad qaadaan mas-uuliyad kaa saarantaha haddii aad saas sameynin waxay noqonaysaa inaad guda weysay waajibaadkaaga waajibaadka oo la guda waayana dembi oo ciqaabta tilmaamaysa oo xeerarka dalka tilmaamayaan waaye waxaan rabnaa mas-uuliyiinta inay ka digtoonaadaan labadaas arrin ay ka digtoonaadaan inayna dadka muwaadiniinta wadada maraa ay xoog ku dhaafin kadibna ayna ku dhibaateynin wadada ay maraayeen ay ka joojin waxaan kaga digaynaa in dhibaato dad gaarta ay wadada uga dhaqaaqaan kaga digaynaa labadaas arrin cidda ku dhaqaaqdo ay ku dhaqaaqdo garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu diyaar u yahay inuu tilaab ka qaado hay-adaha ammaanka iyo kuwa baaristana waxaan ka codsanaynaa si deg deg ah inay u caddeeyaan cid walba doorka ay ku leedahay cidda mas-uulka ah dhibaatada ay geysatay askarteeda ay geysatay iyo doorka mas-uulka markaas jooga uu ku leeyahay iyo mas-uuliyadda uu qaatay markaas dhibka u dhacay inay soo caddeeyaan si go-aan nidaamka waafaqsan oo sharciga waafaqsan ay u qaato maxkamadda garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ballan qaadayaa oo shacabka soomaaliyeed u ballan qaadayaa in uusan kaga waaban cidda ay ku caddaatay in iyadoo dhibaysa ummaddan la helay hadduu ilaahay yidhaahdana kuwa hadda xiran waxay wajihi doonaan cadaaladday wajihi doonaan waxaana loo wajihi doonaa iyagoona xaqooda lagu xadgudbin tii dhibaatada ummadda ay u geysteen runtii indhaha lagama laaban doono runtii waa laga jaasi doonaa qofkay ku caddaato dhibkaas geystay ugu dambeyn go-aankan hadda arrintan taagan goorma ayaad filaysaa inaad soo gabagabaysaan runtii hadba cadaaladdu habka barosesay leedahay baroseska hadda tilmaamahan bixinay oo baarista aan ku sheegay hadeeto kale aan dirnay oo hubkii aan dirnay in la baaro waxaan dirnay mas-uuliyadda ay lahaayeen dadkii kale oo ka maqan kiiska inaan la hubiyo markii saas ku dhamaato hadba sida u gabagabowdo laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in uu go-aan waafaqsan cadaaladda oo runtii eex iyo cadaalad darre aysan ku jirin sida garsoorka ciidamada looga bartaba aan soo saarto maxkamadda ciidamada qalabka sida aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xasan cali nuur shuute gaashaanla sare guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo iigu warramayay stuudiyaha universal ee muqdisho barnaamijka dabagalka ayaad weli daawanaysaan allah u naxariistay marxuum cabaas siraaji ayaa ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada muqdisho aaskiisana waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha labada gole salaadii janaasada ayaana lagula tukaday masjid ku yaala gudaha madaxtooyada iyadoona ugu dambeyn lagu aasay qabuuraha ku yaala cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho cabaas siraaji ayaa ahaa wasiirkii ugu daada yaraa ee xukuumadda ra-iisul wasaare khayre iyadoona uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana aad arrintiisa la iskula dhex maray baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka iyadoo lasoo dhigayey sawiro iyo halkudhigyo la xiriira geerida allah u naxariistee wasiir cabaas siraaji waxaana dad badan ay u arkeen inuu ahaa shakhsi dhallinyaro ah oo lahaa mustaqbal la xiriira in uu bal wax ka bedelo xaaladda guud ee waddanka soomaaliya waxuuna ku soo koray xerooyinka qaxootiga gaar ahaan xerada dhadhaab halkaasi oo uu ku soo koray waxna ku soo bartay iyadoona ugu dambeyn uu sanadkan bilowgiisii ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya dabadeedna uu noqday wasiir ka tirsan xukuumadda haddaba
waxaan idiin soo gudbinayaa khudbado ay ka jeediyeen aaskii allah u naxariistay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فبأي أرض تموت. وزيركي howlaha guud iyo guriyeynta mudane Cabbaas Siraaj oo nin dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon aadna qiimo u lahaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda ee ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay oo xukuumaddiisii uu ka tirsanaabo waxaan dhammaan ka wada murugoonaynaa geeridaasi naxdinta leh ee wasiirka dhalinyarada uu ku dhintay xalay Muqdisho ciidamo sida maaragtay ee wararka maartay ee aad ku tabiseen babahda miidiyaha inay kala shakiyeen si kastaba ha ahaatee tacsiyadaasi waxaan uga wada qayb qaadanaynaa si guud ahaan haddaan nahay hay'adaha dawladda xukuumadda baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagana hormuud nooga yahay iyo garsoorkaba iyo shacbiga Soomaaliyeed intii ehel iyo casabo iyo cashiir iyo asxaab ay wada ahaayeen geeridaasi oo maanta murugada lahayd ee meydkii marxuumka wasiirka maanta lagu aasay isbitaalka Madiina waxaan dhammaanteenaba aan Ilaahay uga baryaynaa marxuumka inuu Rabbi naxariistii janna uu ka siiyo dadkiisana samir iyo iimaan waxaan sidoo kale marka aan leenahay hay'adaha dawladda ee amniga doorkiinii shariifka ahaa ee xaaladda dalka uu ku sugan yahay haddii aan nahay baarlamaanka Soomaaliyeed sidii la idinkugu talagalay u qaata una guta mar walibana waxaan rajaynaynaa inay helaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed amni iyaga ay ku naalwadaan oo aanan jirin siyaabo fara badan ee dilalka oo qorshaysan iyo kuwa aan qorshaysnaynba dad qaali ah ay nooga dhintaan sida la wada socotiin xildhibaan wasiir Cabbaas Cabdullaahi Siraaj wuxuu ahaa xildhibaan dawladda federaalka Soomaaliyeed marka anagoo xildhibaanaha iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed si gooni ay noo taabatay qaar ahaan golaha shacabka waa xildhibaan naga tagay sida la socotiin xildhibaano hore oo 18 xildhibaan ah ayaa halkan ku qaarkood ku aasan yihiin wasiirro ku aasan yihiin fariinta maanta u gudbinayno ummadda Soomaaliyeed waxay tahay weeye dalkan waxa weeye dad badan ayaa dhiig u daadiyay oo u horay naftoodii dad kale oo fara badan dhiigoodii ay u hori doonaan Cabdullaahi Siraaj wuxuu ka mid yahay geesiyiinta Soomaaliyeed oo waddankoodii u adeegaya naftoodii ku waayay waxaan doonayaa in ummadda Soomaaliyeed dhammaan uga tacsiyeeyo geeridaas naxdinta ku timid kuma imaan karto oo Cabbaas iyo xildhibaan Cabbaas iyo dhammaan xildhibaanada ka horeeyay xildhibaanada Soomaaliyeed oo baahna ooyin loo ooyo oo baahna xildhibaanada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin daryeel bay u baahan yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dhammaan wasiirada dadka waddanka u adeegaya oo naftooda khatarta gelinaya waxay u baahdeen amni qaran bay u baahan yihiin amniga qaranna waxa u baahan dhammaan shacabka Soomaaliyeed baa u baahan marka waxaa leenahay waxa weeye waa ka tacsiyadeynaa xildhibaanka Allah u naxariistay laakiin in loo ooyo loo broodiqo kaliya halka kuma filna dhammaanteen waa inaan intaan tafaaxeedana sidoo mar dambe xildhibaan maalmo intaan xildhibaan duugeen aasan iyo wasiir duugeenno waddankan goddar ayuu ku jiraa diyaar waxaan u nahay golaha shacabka dhammaan waddanka u adeegno ummadda Soomaaliyeed nagu taageeraan arintan adag ku jiro waddan godka ku jiro laakiin ooyin looma baahna amni qaran baa loo baahan yahay lagu sugo dhammaan nabadda xildhibaanada iyo wasiirada dadka waddanka u adeegaya oo qatarta gelinaya waana maasantiin halka xildhibaan Shambar ayaa jooga iyo dhammaan xildhibaanada kale laakiin waa islaamina bahda media waa idinka mahadcelinayna kuwaas waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlayay aaskii Allah u naxariistay wasiirka howlaha guud iyo guriyeenta marxuum Cabbaas Siraaj oo ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.